السلام عليكم دوادا walaalhay meel walba adduunka ka joogtaan soo dhawaada axbaabi waa walaashiina nooliina lady boss iyo mar kale maanta waxaan idiin wadaa burmadaasi aad u macaan easy-na sidaa u sameynaayo waa idinla wadaagaya insha Allah soo dhawaada idinkana ila socda ilaa iyo dhamaadka fiidiyowga okay hadda waa bilaabeynaa insha Allah okay walaalahayga waa ujeediin hadda sidaan iigu diyaarsan yihiin meeshaan waxaan ku haystaa 2 koob oo bur ah inta waxaan ku haystaa wax yar oo cusbo ama milix cusbada shiidan waaye hal qaando oo leewita ah ama khamiiriso okay sidoo kale waxaan ku darayaa caano booro caanaha waxa waaye 2 qaando okay sokor ayaan ku darayaa yani sokorta 4 qaandaan ku daraani haddii aad sokorta jeceshahay waa u badsan kartaa yani haddii aad basbaas ku cunayso kale ma fiicna inaad macaan ku cunto soo waa inaad u yaraysataa sokorta hadda waxaan ku darayaa saliida haddii aad u baahan tahay subag aad haysato yani subaga waad ku darsan kartaa haddii aadan haysan waa caadi saliida waa ku darsan kartaa okay hadda waxaan ku darayaa biyo qandacsan maasha Allah biyo qandacsan markii aad burka ku qasto bur kaal iska arago ku noqaa maasha Allah aadna ugu qurux badnaanaya soo hadda si fiican aan isugu qasaa insha Allah mar walba waa idin sheegaa gloveska ma fiicno way daawo leeyahay maahno maasha Allah waxa fiican inaad gacantaada si fiican u nadiifiso si fiican u dhaqato aad markaas gacantaada ku qasto maasha Allah haddii aad ka heshaan fiidiyowga like noo saara share gareey la wadaag asxaabta haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo ee hela fiidiyowada aan soo gelino waxaan rajeynaa insha Allah in aad ka heli doontaan biyaha tartiib ugu diri doonaa ilaa sidoo aniga aan rabo oo ii noqdo yani qofka markii aad qasayso burka kale waad ku qiyaasanaysaa biyaha maasha Allah okay had sidaan ugu qasaya waa u jeedin maasha Allah okay asxaabteeda aan jeclaa mar walba waan akhristaa commentiyadiina ducada iyo dhiirigelinta isugu jiro soo aada idin jeclaa asxaabteeda soo dhawaada marka waxaan jeclaa wax walba inaan inkaga faa'iideeyo okay hadda waa kana sidaan u qasaya maasha Allah u jeedaa soo u qasmooyo uu qurux badan yahay maahno maasha Allah burka markii ay qasaysid kale waxa loo baahan burka inaad waqti badan aad siiso macnaha cabar aad qasto saliida waxay ka caawinaysaa in uu geesaha kaaga dhigin oosan burka oo si fiican isugu qasmo isagoo dhegdheg yeelan soo maasha Allah sidaan u qasaya hadda u jeedin si fiican u qasaa markii aad si fiican u qaso waa kana weelka saliida u marinaya maasha Allah wax yar oo saliida weelka marinaya yani si uu iiga dhigan asagana waa marinaya burka korka ka marina okay meelaan dhigaya si uu u soo fuuro oo si fiican ugu qaxo maasha Allah okay si fiican inuu soo fuuro u baahanahay okay asxaabi waa kana 20 daqiiqo kadib asagoo aad noogu qaxay oo soo fuuray maasha Allah waa kana khamiir uma dhimano waa u jeedin maano maasha Allah saano noqdo u jeedin aad u qurux badan yahay hadda waa fidineynaa insha Allah okay asxaabteeda aan jeclahay mar waliba waxa jeclaa waxyaabo idin cajibe in idin soo sameeyo maadaama Ramadaanka dhow yahay waa in la isu diyaariyaa waxyaabaha Ramadaanka loo baahan yahay in la sameeyo waa Soomaha okay hadda saliida meeshaan u marinaya wax yar oo saliida u marinaa si uusan yani markaan fidinayo si iiga dhigin maasha Allah waxyara saliida waaye saliida olive waaye maasha Allah okay sidaan hadda ku sameynaya waa fidinaya insha Allah marka waa isla soconeynaa ila socda ilaa ay dhamaadka waxaan rajeynaa sida uga helo si ka daran in uga heli doontaan oo aad u jeclaysan doontaan insha Allah commentiyadiina aan ka arko insha Allah asxaabteeda aan jeclahay okay hadda waa kala jaraya maasha Allah sidaan u kala jaraa okay hadda waa kana waa kala jaray 2 qeyb ka dhigay maasha Allah qeybtana sameyn doona maasha Allah
easy waaye uuna qurux badan yahay waa ujeediin maasha allah. Hadda waa kana waa fidiyey sidaan u fidiyey waa ujeediin soo ma maasha allah uu qurux badan yahay. Hadda waxaa u sameynayaa si fiican wax yar qira badan inay kaa gasho looma baahna waa qira haddii ay kaa gasho يعني هادو wuxuu noqonayaa ceeriin dhexda waxoogaa ku adkaanaya oo ka buranaya ma fiicna marka soo dhexda si fiican waa inaad saas uga sameysaa sidaan dhahdaa. hadda waxaa sameynaa decoration ka u sameynaa insha Allah yani nooca aad jeceshaa aad u naqshadaysan kartaa marka aniga dhowr noocan ka dhigi doona hal nooc mooda jaraayo. hadda waa ujeedaan sidaana midida ugu jaraaya maasha Allah ujeedin maano okay sidaana u jaraaya si dhan midba nooca u sameynaya yani hadhow markii la soo dubo oo soo baxo midba nooc noqonaya decoration aad u qurux badan isha soo jiidanayo noqonaya waana la jeclaysanaya soo hal nooc looma u jarto ma fiicno nooca adi mar walba kula quruxsan ayaa u jaran kartaa. soo hadda waa kana sidaan u jaraya ujeedin maano maasha Allah waa ujeedin maasha Allah waaye saana sidaan u jaraya qayb nooca u jari doonaa sidaan markii aan jara arkeena insha Allah. okay asxaabteeda aan jecla fiiriyay saana u jaray ujeedimaano uu qurux badan yahay. qaybtan waa kala baray barkan sidaana u jaray ujeedin barka kale decoration kala u sameynaya hadda glasskana ku jaray soo glasskan qof waliba gurigiisa uu yaala si ila tahay maasha Allah waa glass qof waliba uu heli karo sidaana ugu jaraya oo wareeg waaye yani wareega uu noqonaya hadhow markii oo soo dubmo qurux oo noqonaya kaal iska arag decoration ka mar walba inaan nooc ugu sameysaa fiican soo haddii aad noocyo fara badan ka dhigto wuu qurux badnaanaya ديكور aad u qurux badan ku soo baxa maasha Allah waaye soo ani aad u jecelahay in aan kala nooc ka dhigo oo decoration ka u badiyo adina nooca u jeceshahay u sameey insha Allah. hadda waa kana dabka saliida dabka waan u gaabiyay inta isa kulul aad u kululaan ayaan ku ridayaa soo haddii aad marka hore ku rido ayadoo kulul korku ka gubanaa adigoo sida rabtay oo soo noqonin oo dhexda ka kala fuurin soo waxa fiican saliida ku jirto in burku ku jiro in uu soo karkaro saliida ay soo kululaato si oo si fiican ugu bislaado dhexda uga kala fuuro hadhow maasha Allah. had sidaana ugu aruro dabkana waa u gaabiyay maasha Allah si oo yani iga gubanin korkana guduud qurux badan oo uga noqdo dhexdana uu uga kala fuuro. hadda ujeedin samaha maasha Allah waa kana waa ujeedaan asxaabteeda aan jeclahay sidaana ugu shubay maqliga saliida waa kana maasha Allah mar waliba yani bur ah sameynayso waxa fiican saliida oo dabka u gaaban yahay oo karkarin in aad ku shubto maxaa yeelay si oo dhexdana waqti uga bislaado oo helo dhexda uga bislaado isagoo korka ka guduudan yani dabka hadii aad u dheereyso wuu ka halaabo wuu ka gubanaya. hadda waa kana wuu qurux badan yahay saana ku soo baxo ujeedin dhexdiisa waa kana fiirihe maasha Allah sidaan uu noqday sida inuu noqdo u baahnay maano. asxaabteeda aan jeclahay soo dhawaada waa walaashina noolino idin la jasaakumullahu khayr.